cudurkan haddaan wax yar ku bilaabo kelimada hordhaca barnaamijkeenan insha allahu tacaala sidaad ogsoontihiin buu dunida ugu faafayaa xawli aada iyo aada u badan buuna jarayaa adduunka inta dowladoodu ka kooban yahayna wax yar markii laga reebo wuu dhammaystiray si uu ugu kala badan yahayba annaga gaar ahaan wadanka maraykanka maalmahan dambe aada buu usii fidayaa waad aragteen stadeyada dhowr inta badan wax waa laga wada helay dhimashadu laakiin dhowr state bay ilaa hadda ku kooban tahay stateka annaga aan kuwa noolahay washington waa midka ugu daran oo maraykanka kana bilowda ilaa haddana tirada ugu badan ay marayso taqriiban dadka uu hayana waa ilaa 600-700 oo qof oo hadda u jiifa waxaa dhimatay 40 ka badanna statekan keliya bay ku dhinteen ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu maxamdinaynaa weli wax dadka muslimiinta oo soo gaadhay ma aanaan maqalo nama soo gaadhin haddaba cudurkan dunida sidaa ugu faafaya maxaa inagala gudboon dadka muslimiin haddaan nahay gaar ahaan dowladaha waxa la gudboon waad aragteen oo way sameeyeen wixii awoodooda iyo tabartooda ah way sameynayaan qof walba dee tabartii buu tallaabsanayaa inay xidhaan eeriboodiyadii inay xidhaan diyaaradihii inay xidhaan iskuulaadkii inay xidhaan tajamucaadkii meelaha laysugu imaanayay sababta keenaysana waxaa weeye cudurkan oo inta ugu badan ku faafa isu imaatinka iyo meelaha laysugu yimaado ayuu ku faafaa annaga ka muslimiin ahaan iyo ka wilaaye ahaanba guud maadaama gobolkan uu yahay gobolku maraykanka uu ka bilowday xaaladiisuna ay ka daran tahay gobolada kale governorka ama gudoomiyaha gobolkuna qaraaro badan buu soo dejiyey waxaa kamid a go-aamada ay qaateen gobolkani in jaamacaadka la xiro in iskuulaadka la xiro dhammaantood weliba waxay xirnaanayaan ilaa 24 bisha abriil afraad bay xidhnaanayaan waa waqti aada u dheer weeye oo bil iyo ziyaado ah intaas waa weliba waa tijaabada hore weeye lama oga maxaa ka dambeyn doona ilaa hadda la garan maayo waxaa kaloo ay dardaarmeen oo amar ay kusoo rogeen 250 qof ka badan inayna meel isagu imaan karin xitaa hadday isugu yimaadaan dadka masaajida joogaaye qaabdee aan islaamkeenu amraynin in loo tukadaba iyagu ay ka caafimaad ahaan soo jeedinayaan oo 6 fiid laysu jirsado oo dadku ay kala fogfogaadaan taasoo runtii khilaafsan dee qaabkii loo tukan jiray oo nagu waxaynu dhahaynay dadka taraasu isu dhadhawaada baa la dhahayay marka tabaacadu in la kala fogfogaada waa hawl adag iyaduna waad aragteen baan baraha bulshada iyo dad tukanaya qaabka loo soo gudbiyo marka masaajida badan oo maraykanka ku taala dadku waa kala duwan yihiin masaajida waaweyn oo jamaacadoodu awalba ay badnayd oo 250 ay mar walba ka badnayd mar haddii qaraarkani soo baxay qeybaha suldaadka oo ah caafimaadka iyo dowladiina ay amar ku bixisay inaan laysugu imaanin weliba booliskii ay warqada noo keeneen annaga maadaama masaajidka abubakar islamic center of washington uu yahay masaajidka taqriiban ugu jamaaco badan gobolkan iyo guud ahaanba sida la yidhaahdo masaajidkani waa masaajidka maraykanka ugu jamaaco badan baa la yidhaahdaa taqriiban salaadihiisa salaad aan 250 ka badnayna ma jirto ilaahay xamdigii salaada maqrib oo kale waxaa laga yaabaa 400-500 baa ku tukata weekdayska iyo weekend intaba jumcada 1000 iyo ka badan baa ku tukata marka maadaama jamaacadiisii awalba ay saa u badnayd shuruudii in la kala fogfogaado aan la samayn karaynin iyo masaajidka abubakar isaguna oo ku yaala minnesota oo kale masaajido badan oo gobolkan anaga ku yaalo waaweyn oo kaayagaba kasii horeeyo jumcadii hore xitaa aan lagu tukanin intaas oo dhan waxay wada dardaarmeen iyo gobollo badan in masaajidaas la wada xidho maadaama la maamuli karaynin dadkii maadaama salaad hebel iyo salaad hebel maqnow aan la oran karaynin waxay noqotay in kulligood la wada xiro shuruudaas dowladdu keentayna ay dee ka badan tahay oo xaddii dadkii imaanaya ay ka badan yihiin dadkiina kala fogfogaada aan la dhihi karaynin marka taasi marka waa qaraar fiican weeye sababtoo waxa weeye salaada jumcada iyo salaada jamaacaadka laysu imaanayo muxuu qofku uga hadhi karaa in la isweydiiyo cudurdaar ma leedahay
oo islaamkeenu ma qasab unbaa inaa awal badee dumarka iyaga salaada jamaacada iyo jumcatoona waajib kuma ahayn guryahoodana dabcan u fadli badnaa mar walba haddaan masaajida cashira ka soconin haweenka gurigooda qolkooda jiifka usii fadli badan laakiin ragga ayaa waajib ku ahayd sida raajixa iyadoo nafteedu masale la isku hayo culimadu inay jamaacada yimaadaan jumcadu iyadu la iskuma khilaafsana inay tahay waajib laakiin oo ragga ay waajib ku tahay laakiin jamaacada ayay culimo badan leeyihiin awalba waa sunna mu'akkadaba laakiin ra'yiga waxaa xoog badan jamaacadu inay tahay waajib oo la yimaado raggu haddaba waajibkii nooca ahaa haddii maxaa looga hadhi karaa wax badan baa looga hadhi karaa waxaan rabaa marka waxyaabaha looga hadhi karo wax kamida inaan sheego almarad baa kamid a hadduu qofku jiran yahay ama uu ka baqaayo inuu jira ay soo gaadho xuduudu maradin inuu meesha kasoo asiibo labada arrimoodba waa arrin cudurdaar oo uga hadhi kara jumcadii iyo jamaacadii labadaba wuxuu uga hadhi karaa qofku isaga oo musqul u baahan oo waxyaabaha acdaarta sharciga inuu inoo baneeyay haddaad musqul u baahan tahay jamaacadiina ay taagan tahay musqusha aada u baahan tahay baad hormarinaysaa haddii cunto aada u baahan tahay oo gaaja ku hayso oo qalbigaagii la jiro salaadiina ay taagan tahay jamaacadii lagu jiro cuntada ayaa la hormarinayaa rasuulkaa yidhi sidaa sala allahu calayhi waali wasalam oo la yidhi laa salaata bixadrati aطacaam walaa wahuwa yudaaficu alakbathaan yani isaga oo qofku celcelinaya musqulshii baahidii uu qabay ama cuntadii uu u baahan yahay hortaalo yuusan ha hormariya baa layidhi waxaa kale oo looga baaqan karaa jumcadii iyo jamaacadiiba inuu qofku ka baqayo in xoolihiisii dayacmaan in ehelkiisii reerkiisii dayacamo ama naftiisii inay dayacanto ayuu ka baqaya waxaa kamid a alkhawf cabsida guud ahaan baa kamid waxaa kamid a jamaacada waxaa looga hadhi karaa almatar roobkiibaa looga hadhi karaa waxaa looga hadhi karaa qabowgii daraabaa looga hadhi karaa dabayshii qaboobeyd baa looga hadhi karaa dhoobadii maarata qofka uu ka baqayay ayaa looga hadhi karaa barafkii wadamadan ka jira oo kalebaa looga hadhi karaa rasuulkuna xiliyada kale waxaa la odhan jiray dadka alaa salluu fi rixaal guryihiina ku tukada baa la dhihi jiray jamaacada waxyaabaha looga hadhi karo waxaa kamid a basasha la cuna iyo toonta oo kale labadaa geed rasuulku wuxuu yihi qofkii cunaa masaajida iyada yuuna naga imanin macnaheedu jamaacadii ha ka hadha weeye inkastoo la rabo yani ha iska soo habeeyo yuusan cunin hadduu cuna ha iska nadiifiyo waa midda lagu boorinaya laakiin xilligaas iyadaa cunay qofkii jamaacadii waxay noqon cudurdaar uga hadho haddaba hadday sidaas tahay shareecadu waxay ku dhisan tahay ixtiyaad iyo masaalixda in la ilaaliyo mafsadada in la celiyo in xifdiga ummadda iyo la xifdiyo oo diintooda iyo caqligooda iyo naftoodaba loo xifdiyo sixada iyo caafimaadka lagu dadaalo salaamada iyo nabadgelyada lagu dadaalo amraada iyo jirooyinka gudbana laga fogaado qaabkii ay la isugu gudbin lahaana laga hortago oo laga sii dheeraado allahna wuxuu leeyahy subxaana walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yani ha ku ridina naftiina iyo gacmihiinaba idinka dhan meel tahluka ah ha isku ridina taasoo culimmada ay u daliishadaan walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima haddii laguu sheego meel khatara ama halisa inaadan naftaada aadan gelinaynin rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu diiday xoolihii ama geelii jiranaa in geelii kale oon xanuunsanayn ceelkii loogu soo arooriyo oo lagu soo kaxeeya kii jirnaa kii kale laga dulkeenay buu diiday maxaad u malayn dadkii marka bini aadamka qolo xanuunsan inuu qoladii kale uu u yimaado rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam qolo wafdi ah oo u imaanaysay reer bani thaqiif niman wafdi oo rasuulka soo aaday waxaa ku jiray nin cudurka judaamka la yidhaahdaa u hayaa ku jiray marka rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi waali wasalam innaa qad baayacnaaka farjic waanu kula mubaayacoona halkaagaanu ballantii iyo dhaartii islaamka inaad soo gashayba kugula galae halkaaga ka noqo ha imaan wuxuu yihi fara min almajduumi kamaa tafiru min alasad ka carar qofka cudurka judaamka uu hayo yani waa cudurada xunxun weeye ka carar sida aada uga cararayso libaaxa oo kale haddii aad ku maqashaan baadhi gobol ama wadan daacuunka uu ku dhacay ha gelina qofka joogaana yuusan ka bixin oo dadkii kale yuusan u tegin
علماء الإسلام كشيخ ابن القيم رحمه الله باب دنبو عقيدة كتاب كيس زاد المعاد كرسولك صلى الله عليه وسلم يري هديجيسي وحا كمدها التحرز من الأدواء المعدية يعني عذر هذا جدبه أو مارت ضدك كالأوفا فسدوا ضدك اللوجا إلى أن لها نبت الأصحاء ضدك عافمات سنسي وقفوا لهاين كوكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله sidaasoo kaleba isagu hadal cajab badan oo dadka hadda maanta karantiilka iyo meelaha gaarka lagu hayo inta laga kaxeeyo dadka caafimaadsan meel lagu celin meesha hadda aad maqlayso leeyahay 14 beri baa qofkii uu ku dhaca meel lagu haynaya bal u fiirso sheekh al-islaam taymiya wuxuu yiri waman kana mubtalan bi amraad mu'diya qofkii ilaahay ku ibtileeyay cudur gudbaaya waxa banaan yajuuzu mancuhu min as-sakni bayna al-ashiha waxa dadka caafimaadsan dhaxdooda in laga celiyo ayaa banaan oo uusan ku noolaan walaa yujaawiru al-ashiha lana darsi maayo oo dadka iyaga loo keeni maayo haddaba sidaas daraadeed culimadu majaamicda fiqiga iyo culimada islaamku waxay soo saareen haddii ay wadanka la joogay soo rogaan inaan dadkii isu imaanin oo tiradaas iyo qaababka ay soo rogaan shuruud noocaasa in ay u banaan tahay dadkii in la joojiyo masaajidiina laga xiro si ay salaamada iyo nabadgeliyadaasna loo ilaaliyo waxyaabo tadaaciyaad ka dhalan karo oo la celin karin ay imaan karaan sidaas daraadeed bay masaajida loo xiray dadku waxay leeyihiin cudurdaar ba haystaan salaadooda insha Allah ta'ala guriyahooda ku tukadaan ila waqti Ilaahi subhanahu wa ta'ala halla bariyo dhamaan insha Allah ta'ala jazakumullahu khair barakallahu fiik